الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي ومهد إسكال سبحانه وتعالى والاليال وحين كوكو جرني تاريخ الخلفاء الراشدين خلفاء هانون صنيد سويال كودي تاريخات بين كوكو جرني كارهانا وحين مرني مقتل عثمان دلكي مركا لدلي خليفكي هانون صنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وحين شلك صور رمني إن dad mucaarada ay ka yimaadeen meelo ama gobollo kamida gobollada islaamka koox ay ka timi wadanka Masar kuwa kalena ay ka yimaadeen Kuufa qaar kalena ay ka yimaadeen Basra dabadeedna ay sheegteen inay xajka aadayaan ama umrada ay aadayaan dabadeedna ay sidaa ku yimaadeen magaalada Madiina duleedkeeda ugu dambeynna ay soo galeen magaalada Madiina gurigii uu ku jiray Uthman ibn Affan ay markaa goodoon ka qabteen raggaas oo dalbanaya markaa dhowr arrimood kow in uu Uthman iscasilo oo uu xukunka ka dego laba inay gacanta u soo galiyaan ninka la yiraahdo Marwan ibn Hakam oo kamid ahaa wasiiradii Uthman ibn Affan waana nin ay isku xagga maarta reer Bani Umayya isku reer yihiin oo nin aad u adag ahaa xaqiiqatan dawladda reer Bani Umayya ee ka dambeyn doonta khulafaa raashidiinta ninka ay ku abtirsata noqon doona iyo hadii uu labada mid kamid ah sameyn waayo inay dilayaan marka lama filaan bay ahayd oo dadku may filaynin in saxaabiga nabiga sida loo dili doono waxa kale waqtigu uu ahaa xilli ay dadku aadeen xajki iyo waajibaadkii xajka oo bishii dulqicda aakhirkeedii bay yimaadeen bisha dulxajna waa tan waajibaadkii xajka la soo guto marka dad badan oo magaalada Madiina deganaa waxay aadeen xajkii bay aadeen oo ay ku jiraan ummahatul muuminiin xaasaskii rasuulka kaleey salaatu wasalaam markii ay ciidamadaasi yimaadeen oo goodoonka ku qabteen ay Aisha iyo xaasaskii kale ay baxeen waxa lagu yiri maad iska joogtid magaalada Madiina waxay tiri miyeedan arkin waxa lagu sameeyay oo Habiba Ramla bint Abi Sufyan waanu ka soo waramnay inay Habiba ay biyeystiri u geey Uthman bin Affan markii goodoonka laga hayay oo ay u diideen bal ay faraskeedii ay damcaan inay ka tuuraan oo ay dilaan gabadha marka meel aan lagu ixtiraamaynin ka waran sawjaadkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam dabadeedna waxay go'aansadeen inay kulligood isaga baxaan magaalada Madiina oo ay aadaan magaalada Makka iyagoo gudanaya waajibaadka xajka marka saxaabada iyo muslimiinta badankoodu waajibaadka xajka ayay gudanayeen arinta labaad ee jirta waxa weeye Madiina waxay ahayd caasimadii muslimiinta lama filaynin in khaliifka iyo madaxweynaha muslimka lagu dili doono oo ciidamada muslimiintu faranta hore ayay day joogan markii ay maqleen in goodoon lagu hayo amiirul muuminiin wulaadi ama ragii waaliyada ahaa ee gobolada xukumi jiray nin walba ciidan buu soo diray sida markaa Muawiya bin Abi Sufyan markii uu maqlay ciidan buu soo diray uu hogaaminaya Habib bin Maslama Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh oo Masar joogay isna ciidan buu soo diray oo Mujashi'u hogaaminayo Kuufana ciidan baa laga soo diray uu hogaaminayo Al-Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi marka waa bishii dulxaj xajkii intiisi badneed way dhamaatay sidoo kale waxa soo noqonaya dadkii magaalada Madiina ka xajay ayaa dib ugu soo noqonaya oo ku soo guriyo noqonaya magaalada Madiina jaaniska markaa ay fursadda ayay nimanka khawaarijtu ka faa'iideysteen ciidamadaasi intaanay imanin magaalada Madiina kuwii Madiina ka xajka ka aadanay intaanay soo noqonin ayay markiiba ka gaadhsiiyeen dabadeedna waa kuwii dilay Uthman radiyallahu anhu qaabkay u dileen ama sifada u dileen albaabka ayay ku soo garaaceen xaqiiqatan Uthman baa diiday in la difaaco oo asxaabta nabiga u diiday inay difaacaan
وصحابة النبي ووينا علي بن أبي طالب لبدي سويل بو صدري حسن حسين الزبير وكلا يسنويل كيسي صدري عبد الله بن الزبير طلحة بن عبيد الله يسنويل كيسي صدري محمد بن طلحة رضي الله عنهم جميعا أبو هريرة أيا كمدا رجي مشى شوقي عبد الله بن عباس أيا يسوي شوقي لكن عثمان وحو دري إنه ما سندك وحجك حجيتك markaasuu Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri inaan adiga ku difaacaya iga khayr badan inaan soo guto waajibaadka xajka wuxuu yiri waa amar anaa ku amray dadka weynad xajisaan waayahay saxaabadii markaa uu kala diray Uthman oo waa kii dhaariyay nin walba ku yiri nin walba hadaa daacadaydu ay qoortaada saaranta iskaga tag halkan oo ka dhaqaaq sidii bayna uga baxeen nimankii markaa qowleeysatada ahaana albaabka ayay soo galeen waxa la sheegay in albaabka gubeen markii uu arkay in ciidamadaasi soo galayaan ayuu bilaabay salaad inuu tukado salaadii markii uu dhameystay uu fadhiistay kitaab Ilaahay buu la soo baxay kitaabkii isagoo akhrinaya ayay u soo galeen markii uu horeysay nabar bay madaxa kaga dhufteen oo ay ka dakhreen markaasa nin kamid ah habarqabayaashaas wuxuu leeyahay nacfal odaygaagan xun ala ay diin anta diin nooceebad ku sugantay markaasuu yiri lastu nacfalan waranu nacfal ma yihiin waxaana ahay amiirul muuminiin waxaana ku suganahay millatu ibraahim xaniifa muslima wama kaana min al-mushrikiin diinta xanafiyada muslimka baan ku suganahay dabadeedna waxa weey wuxuu ku dhuftay waran buu ku dhuftay halka laabta kaga dhuftay marka guriga waxa joogay dumarkiisii iyo caruurtiisii ama qaar kamid ah doomadiis xaaskiisii Naila bintul Farafisa ilaahay Allah ka aade ayaa isku duubtay iyo gabadh kale oo qabay Uthman oo liyadan la dhigi jiray Ummul Baniin bint Uyayna ibn Husn al-Fizari kadibna habar qaba la yiraahdo Saudaan bin Hamran oo ahaa asal ninkii dilay macna Uthman bin Affan raggii maaragtay kamid ahaa dilay ayaa seef gacanta faraha hore kaga jiray Naila gabadha Naila la dhahdo ilaahay Allah ka dabadeedna markay booday ayay dileen subhanallah isagoo quraan akhrisanay dhiigiisii wuxuu ku dhacay kitaabka masxafka quraanka gaar ahaan aayada fasayakfikahumullah wa huwa samii'ul aliim ilaahay baa kaaga filan maqal badanaha cilmiga iyo aqoonta leh subhanahu wa ta'ala ilaahayna wuu kaga filnaaday markii ay dileen waxay dooneen inay qoorta ka gooyaan balse dumarkii baa qayliyay iyo caruurtii markaa way isaga tageen ninka xaqiiqatan seefta ku dhuftay markaa kaga dhameeyay Uthman adoon kamid ah adoomadii Uthman oo meesha jooga ayaa dilay adoonkaana waa la dilay isagana kii dilayna adoon kale ayaa dilay marka meesha qolka dhexdiisii dagaal baaba ka dhacay labada nin baa ku dhintay Uthmanna sidaas ayuu ku geeriyooday warkii markaa wuxuu gaadhay saxaabadii waaweynaa oo aan filaynin in la dili doono khaliifka muslimiinta Zubayr ibn Awam baa warkii loo sheegay dabadeedna fatarahama ala Uthman buu maartay ilaahay weydiiyay naxariis inuu ilaahay u naxariisto markaas lagu yiri nimankii dilay way ka murugoodeen oo way ka shaleeyeen tabban lahum buri hoog Allah u sugnaado fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ayata suakhi waxa loo sheegay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxa la yiri ninkii Uthman waa la dilay fatarahama ala Uthman buu ilaahay naxariis weydiiyay markaas la yiri ragii dilay way ka shaleeyeen oo ka murugoodeen wuxuu akhriyay ayada ah kamithal shaytaan id qala lil insani ikfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin waxa loo sheegay saxaabigii Sa'ad bin Abi Waqas oo leeyay ninkii Uthman waa la dilay isaguna ilaahay buu weydiiyay subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto markaas la yiri waa nimankii dilay way ka shaleeyeenoo way la xumaatay markii ay ficilka ku kaceen wuxuu akhriyay قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه آيات كسوخري في سورة الكهف كجر raggaas markaa waxay sheegeen inay ka murugoodeen markii ay dileen waana shaytaanka
marka uu qofka uu dambi faraha la geliyo marka hore uu kugu dhiiri gelinaya xumaanta iyo dambiyada iyo dilka laakiin marka dhiiqada cagaha la gasho ayaa murugadii iyo marka warwarku ku imanaya nin kamida asxaabta rasuulka kamida khulafaa raashidiinta kamida al-ashara al-mubashirin bil janna kamida marka subhanallah labadii hablood gabdhood nabigu uu dhalay ninkii guursaday nabiga marka kaleey salaatu salaam sadaqa oo aha ninkii nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam ala astahyi rajulan tastahyi minhu al-malaa'ika maxaan uga xishoon waayay nin ay malaa'iktu ka xishooto kama xishoonin saabiqadii islaamka ee uu horumaray goor hore oo islaamay kama xishoonin بدريجا وياهي كجماعة حشونين آيات القرآن كي كسود دقيق كجماعة حشونين كتاب كإلهي القرآن كي وجمعية فضل جي سوين كجماعة حشونين دأدي سوين يدوس دوري استتنشر هيد كجماعة حشونين وفي رسول شيطان كم هذا حوجة قلت تدك الناعس سبحان الله لا إله إلا الله بل waxay isku dayeen markii uu dhintay waxay u diideen in lagu aaso meeshii ay ku aasnaayeen nabi maxamed iyo abu bakar iyo umar oo qolkii Aisha ahayd markaas qaar kamid oo shayaatiintaas waxay dhaheen xabaala yahuud ah lagu aaso subhanallah waxa looga baqay markaa inay meydkiisa jarjaraan oo tamthiil ay ku sameeyaan marka goor habeena baa la aasay 18 bishii dulxaj sanadkii 35 ee hijriyada maqrib iyo cishayntii u dhaxaysay waxa ku tukaday khilaaf badan baa jira oo riwaayado badan baa jira qolo waxay dhaheen Zubayr ibn Awaam Hakim ibn Huzam ama Jubayr ibn Mut'im saxaabada qaar kamid ah baa ku tukaday ilaahay Allah ka aaday maalintii habeenkii lagu tukanayay waxa ay dadku arkayeen madax madow oo fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo dhulka dhan qabsaday oo qaar kamid ah saxaabadu ay dhaheen malaa'iktii ilaahay baa soo xaadirtay janaasadiisa فرضي الله عنه waxa lagu aasay xabaalaha baqiic dhanka bariyeed baa laga aasay waliba meel ka durugsan xabaalihii saxaabada lagu aasi jiray meel ka durugsan ayaa lagu aasay aakhirkii markii dambe xabaalihii way isgaadheen oo waa xabaalaha baqiic magaalada Madiina radiyallahu anhu arda dilkii Uthman kadib waxa furmay albaabkii fitanka ayaa furmay mana xidhmayo أول الفتن فتنة أو الرئيس وحوي ودلك عثمان وآخر الفتن الدجال فتنة أو ضمبي سنة والدجال كي مسيح الدجال كأو ضمبيوي تاسي صحابة دورين شرين فتنة دي مركا واي بلابنتي وكي عثمان دورين شري هداد الدشان إله من كل أرتي دي بسوق علان ميسان إله من كل أرتي كل جين مساجد كم وده تكون دونتان كل جين يدون كوردا ما يسترن قال إسكما وده علين دونتان ما عدا وده صوت دونت وأنا رب أوي دعضي وحي كدم بيع عثمان بن عفان مسلمين تتفرارق أي كويمي مرحلة أضاق بيهاي marka sida marka sharaarada ama dabku uu hulco oo kale ayay dadkii waxay u gashay fitnadaas ama dilka Uthman qof kasta oo maqlay uu ka naxay uu ka argagaxay bal nin walo kasto iimaan la wuxuu go'aan ku gaadhay ragga ka dambeeyay dilkooda inuu waxa weeyaan ka argoosto وكي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورنشري في تنبضن باكا دنبيان كورمي دونو oo dad badan oo muslim ku dhinteen hadii aan loo argudi lahayn ama argoosigiisa la dalbi lahayn Uthman ilaahay baa samada dhagxaan kaga keeni lahaa dadka buu yiri kuma kuno qof baa u dhintay waan ka warrami doono nimankii dilay madaxdoodii waxay dooneen inay saxaabadii waaweynay Madiina joogay inay u soo bandhigaan inay khaliif noqdaan Ali bay u tageen Ali wuxuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma waxa weeyaan ninkii Uthman oo wali la aasin oo aan maqlay rasuulka Ilaahay oo leh miyaanan ka xishoonaynin way malaa'iktu ka xishooto ayaan gadaashi noqda khaliif wuu diiday Zubayr bay u tageen way diiday Talha u tageen wuu diiday markii la aasay kadib ay Ali markale ku noqdeen Ali baa aqbalay markaa radiyallahu anhu arda halka markaa waxa ka bilaabmay khilaafadii Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu xaqiiqatan dadka xilliga noolaan ninkii ugu fadliga badnaa uguna weynaa uguna khayrka badnaa isagu ahaa oo mutaystay inuu khaliifo noqdo muslimiinta radiyallahu anhu Ali markaa insha Allah manaaqibtiisa iyo fadligiisa waynu ka warramaynaa
si aynaanu kala ilaawin bal silsilada taariikhda say wada socoto waxaan rabaa marka hore inaan isku xidhno Ali markii la magacaabay radiyallahu anhu masaajidkii buu tagay bay'adii uu dadka la galay dadka uu bay'ada la galay waxa kamid ahaa seefta ay nimankaas madaxa kaga hayeen Zubayr iyo Talha kamid ah waa lagu qasbiyay waa inaad qasab bay'ada ku gashaan baahid kur iyagoo oo maartay la qasbayo isla markii Ali la markaa la magacaabay dawladdiisii uu magacaabay ragii markaa madaxda u ahaa Ubaydillah ibn Abbas wuxuu diray markaa Yaman Qays ibn Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu saxaabigana Masar ayuu magacaabay Sahal ibn Hunayf wuxuu magacaabay dhulka Sham oo Muawiya joogo وهكذا عثمان بن حنيف وحو مغعابي بصرة أبو موسى الأشعري وكوفة جوغي وأودايي وهكذا لكن وحا كهر يمي لباتوين آدواوين حقيقة وقفك لها دي كهر من الله أي خطرتها لباتوين كاسوحة ويه ودلكي عثمانية راتكي سامنتي وكاني وإلا انتو خليفك وها علي بن أبي طالب وحوية لباتاس وهر تاقني wuxuu diray Sahal ibn Hunayf oo uu diray Muawiya markaa ciidankiisii joogay dhulka Sham ayaa ninkaas ka horyimi isagoo oo warqad wata oo la walaay soo magacaabay oo Ali bay soo magacaabay yaa ku magacaabay bay dhaheen ma Uthman mise Ali ma Ali bana soo magacaabay dib u noqo bay dhaheen yeelimeyn maxay u diideen waxay u diideen dhageysta gabadhii xaaskii uu qabay Naila bint al-Farafis ee uu qabay Uthman radiyallahu anhu markii la dilay Uthman khamiiskii uu Usmaan sitay oo dhiigiisii wata iyo faraheedii ayay qaato waxa uu dirtay dhulka Sham Muawiya u gees waay Muawiya Uthman ilmaadeer bay ahayn oo reeban Umayya labaduba Muawiyana wuxuu khamiiskii suray masaajidkii Masjid Dimashq masaajidka Dimashq ayuu suray masaajidkii سبحان الله دابدنا قف كاستو مسلمو يمادا خميس كاسو كدلويا ديغي عثمان iyo farihi xaaskiisi la ilaaha illa allah kulligood waxay dhaar ku galeen ilaa inta ay ka dhameynayaan oo ay leynayaan ragii ka dambeeyay dilka Uthman inaan cidna maqal cidna dhageysan walaw kaana Ali ibn Abi Talib xitaa Alina noqday markaas waxay dhaheen horiyaa ku soo diray kaasuu Ali bay soo diray iska noqo bay dhaheen علي waxaan ka rabnaa qatalata Uthman ragii dilay Uthman inuu noo soo saaron layno kuwan u argudno Uthman bin Affan saasoo kale magaalooyinkii badnaa ama goboladii badankoodii waxa way rag badan oo mucaaradaba dawladii Ali ku kacay oo iyaguna rabay dilkii markaa Uthman in loo argudo magaalada Madiina markaa waxa joogay Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu iyo Zubayr iyo Talha iyo Sa'd ibn Abi Waqqas saxaabo waaweyn baa joogay Zubayr iyo Talha waxay dhaheen waan umra tageynaa fasax Ali bay fasax ka dalbadeen ahlina uu fasax ma ka yaadin waxay ka hor yimaadeen xaasaskii rasuulka ummahatul muuminiin oo waajibaadkii xajka soo gutay ayaa waxa gaadhay warkii ahaa Uthman la dilay قتل عثمان ما لدلها في بلد حرام يسوق بلد حرميسان جوجا ومدينة مدينة بلد الله الحرام كمذا وفي شهر الحرام بالحرميسان وبشد الحج هيد أي دلين ودما حرام ديك حرام أنا ويتادين وقف مسلم إلهي ديك يسحرمنا ويدلين هذا تبي يقول نقدن مكة سبحان الله مكة markii ay maqleen Zubayr iyo Talha yimi waxay isugu yimid rag far badan ayay isugu yimid ciidamo badan bay isugu yimid nikla dhig jiray al-Ya'la oo Yemen ka yimi ayaa wuxuu keenay xoolaha far badan 600000 diinaar 600 diinaar buu wataa wa 600 baciir 600 oo markaa geelana waa wataa oo awra ayaa yimi magaalada Makka sidoo kale Abdullah ibn Amir ibn Qurays oo Basra joogay ciidamo badan oo ka yimi xaqana waa wata wala isugu yimi meesha ciidan badan baabay noqdeen subhanallah oo 6000 oo ciidana sare u dhaafay Aisha markaa waxay dalbatay ragii ka dambeeyay dilkii Uthman in waxa weeyaan loo aargudo iyada iyo
xaasaskii markaa ama sawjaadkii nabigu uu qabay salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi Abdullah ibn Umar oo isagu joogay Madiina isna wuxuu yimi Makka u yimi Alina wuxuu go'aan ku gaadhay radiyallahu anhu Sham oo Muawiya uu joogo way diideen in ay bay'ada la galaan go'aan wuxuu ku gaadhay in la dagaalamo waayo way caasiyeen taacadii waliyul amriga amiirkuuhi muslimiinta ayaa caasiyeen marka go'aan wuxuu ku gaadhay in la dagaalamo qolada ciidan buu markiiba abaabulay subhanallah Abdullah ibn Umar ibn Khattab ka dalbaday inuu ku soo biiro wuu diiday wuxuu ana rajul min ahli al-Madina nin reer Madiina baan ahaa reer Madiina haday ku raacaan waan ku raaci doona qaar badan oo kamid ah reer Madiina ayaa diiday marka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar markiiba muxuu soo aaday Makka marka xaasaskii nabiga kaleey salaatu wasalaam Aisha mooyaan intii kale iyaga waxa la qumanaatay in Madiina ku noqdaan Xafsa ayaa doontay inay raacdo walaalkeedu Abdullah ibn Umar baa u diiday deetana iyagu waxay ku laabteen magaaladii Madiina halka Aisha ay ciidankii hogaamisay ayada iyo Talha iyo Zubayr ilaahay Allah ka aada ciidan bay markaa abaabuleen ciidan fara badan oo dhowr kuna 6,000 sare u dhaafiyay wayna dhaqaaqeen iyaga oo markaa raadsanaya xagaan aadnaaba dhahan qola waxay dhahan inuu ardu Sham tagno dhulka Sham oo Muawiya u tagno waxay dhahan Muawiya inaga inooma baahna waa nin ciidan xoogan haysta hadaa xageenu tagnaa waxaynu taginaa Basra intageena magaalada Basra raggii ka dambeeyay dilkii Uthman iyo intii taageersaneed reer Basra ila Basra waa laga yimi Soomaa Kuufa iyo Basra iyo Masar bay ka yimaadeen raggii dilay Uthman horta Basrada aynu ka bilowno raggii dilay Uthman ee Basra jooga iyo inta taageersan ba waynu la dagaalamayno marka uu fiirsada waa fitan bayna al-muslimiin fitnooyin muslimiinta dhexdooda taagan sida saxda waxay ahayd in looga dambeeyo maxay amiirul muuminiin Ali ibn Abi Talib amiirka muuminiinta in looga dambeeyo Alina wuu ogolaa ragga inuu qisaaso raggii ka dambeeyay dilkii Uthman wuu ogolaa bal wuxuu dhigi jiray Allahumma inni abra'u ilayka min dami Uthman ilaahu waxaan bari ka ahay dhiigii Uthman radiyallahu anhu arda maxay sameeyeen asxaabti ra'yigoodii sidii waafaq waayay soo maaragtid waa fitanka ayaa keenay arinta noocaas subhanallah oo nabigu ka digay salawaatullaahi wasalaamu alayhi saxaabaduna waa dad inagayna la mid ah oo macsuumin maaha aan dambaabin way dambaabi karaan dambi weyn mid yarba ka suurtagal asxaabta rasuulka salawaatullaahi wasalaamu alayhi sida saxda waxay ahayd in amiirka looga dambeeyo oo isaga markaa qisaasta laga soo Ali markaa wuxuu ku doodayaa wuxuu leeyahay war raggii dilay Uthman waa rag xoogan waa nimanka ciidan 2,000 oo nin keenay magaalada Madiina keenay ee dharaar cad gowracay Uthman bin Affan dawladana way ku dhex jiraan iyo xukuumadda meel walba marayaan rag badan oo taageersan way jiraan fitanka iyo fitnada idinku yareeya iyo adeeca aniga iyo hogaansama markaad adigu iyo hogaansantaan nimanka mid baan u soo qabanayna laakiin inta fitnadaasi joogto iyaguna way dhuumanayaan waxa weeyaan waxna ka faa'iidi meeysan sida uu sheegay inay dhacday isagu inuu saxsanaana waad arki doontaan subhanallah waxa dhacday marka Aisha ciidankii bay ka haysatay markii mareysay meel la yiraahdo maa'il hawab biyaha hawab waa ceel biyo laga cabi jiray ayaa ciiday waa habeen markaasay tiri waa maxay meeshani markaas la yiri waa biyihii maawul hawab waxay tiri wari celiya oo maxaa dhacay waxay tiri sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulkii Allah ayaan maqlay oo leh ayatukunna wa tuma gabadha ayda joogta maawul hawab ay ku ciidi doonto xadiis sahih ayatukunna laakiin kelmadda iska sax shiicadu way bedelaan iyaakunna ayay ka dhigaan iyaakunna waa maxay arwaati waa ayaa la socod arwaati taayida ay maawul hawab joogta ku ciidoonto ya laakiin xadiiska saxiixa wuxuu sheegayaa ayatukunna wa tuma gabadha ay aydaas ku ciidoonto markaasay tiri gabadhaasi aniga noqotay tibi celiya dabadana ninkii ay habar wadaagaan habaryarta u ahayd Abdullah ibn Zubayr oo mahramkeeda ah ila mahram laan bay ku soconaysaa wiilkii habaryarta u tahayd baa mahram u ah Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu
ayaa yiri habar yar waxa weeyaan waxaan u soconaa islaax bayna الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إصلاح بين الصعنا إنه وحبين وقاعدنا نيدين نوي وناكسنت يضل الله هذا الهيو أيا البلاق يقول لي النجاة تقال بابا صوص صعدا عيدا كي علي بن أبي طالب بن يسودو تتنوع ولا الرقان صدوا ولا دقاق waxa ay wajaheen way aadeen magaalada Basra waxa joogay markaa oo Ali bin Abi Talib soo magacaabay saxaabigii la oran jiray Uthman bin Hunayf oo Badri ah oo Ali bin Abi Talib magacaabay laba nin buu soo diray markaa Abu al-Aswad ad-Du'ali iyo Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn waa saxaabi way Abu al-Aswad ad-Du'alina waa nin taabici وانا نينكا لو تيريي انو قرانكا نقاطك بعد inay dhibic bay xaq hoose ku wadataa taada laba dhibcood faada saddex dhibcood ninkii quraanka uu sameeyay way Abu al-Aswad ad-Du'ali radiyallahu anhu ilaahay allah ka ninkaas oo cilmiga naxwahana looga dambeyn jiray labada nin baa la soo diray Aisha warayst yaa ummul muuminiin hooyadii muuminiintay maxaa gurigaaga ka soo saaray miyaan ogeyn bay tiriin la dilay ninkii Uthman oo la dilay bil xurmaysan la dilay oo bisha xurmaysan lagu ixtiraami waayay beledul haram beled xurmaysan lagu ixtiraami waayay dhiigiisuna xaraam buu ahaa ninkaas aan u soconaa bay argoosigiis oo maxaad Basra ka soo doonteen raggii reer Basra ee ka dambeeyay baanu ka bilaabaynaa dib bay u noqdeen waxa uu tageen ninkii markaa Uthman ibn Hunayf isaguna markaa waa istaagay oo masaajidkii buu ka kacay wuxuu yiri waad aragtaan ciidankaas weynoo yimi ciidankaasina wuxuu rabaa inagu miyaynu dilnay Uthman may haddayna inagu Uthman dilin maxaynu soo qabsanaynaa badde kamaynan tabeen raalina kamaynan ahayn ha soo galaan deetana shiid bay ku bilaabeen wuxuu ogaaday rag kamida raggii dilay Uthman inay masaajidka ba joogan subhanallah la ilaaha illa allah waxa aakhirkii dhacday in Uthman bin Hunayf isaguna uu markaa diido inay soo galaan ciidamadaasi magaalada dagaal baa laga ka dhacay markaa dagaal ayaa ka dhacay dagaalkii markaa waxa ku adkaaday ciidankii Zubayr iyo Talha iyo Aisha radiyallahu anhum jamiican ayaa ku adkaaday magaaladiina way galeen markay magaaladii galeen waxay dileen 70 rajulan min qatalati Uthman toddobaatan kamida raggii ka dambeeyay dilkii Uthman هو كميد يهاي نيكي لدي جرى كنانة لقطة لجوي كنانها ورقي سيف تقول أفتي عثمان بو كميدها كنانة داس لقطة لجوي ترى أنت لقطة ساق بتبي كي جوي لقطة كل أفت كينا لقطة بودت isagoo lugti saaran tahay ayaa wuxuu yiri nin baa soo maray wariyaa ku dilay kaasuu barkintaydan ay dishay aan barkanahay kii uu dilay lugtiisa ku dilay ayuu hadana barkaday nin geesiyo buu hayo balaaya subhanallah la ilaaha illa allah ka way dileen oo ka takhallus iyo 70 kamida maxay dadkii ka dambeeyay dilkii Usmaan waa fitan u fiirso amiirkii muuminiinta lagama amar qaadanin dawladdu ma oga iskood bay isu direen oo fiirsada waa fitan qofkii dilay Uthman bin Affan Soomaaliya maxkamadda soo istaaji aalaana dal ma garanayo qof dadkii dilay Uthman bin Affan magacyada waa la sheega magacyada Saudaan ibn Hamran kaas waa la sheegay kanaanada waa la sheega riwaayadka ku soo arooray subhanallah Amr ibn Hamaq waa la sheegay laakiin se wax saxiix oo ila aalaanada aynu hayno waaynu ku tuhunana dhanaada ka dambeeyay dilkii Uthman garanmayn hadii la dilay Uthman waa nin kamid ah rajul min al-muslimiin muslimiinta kamid kii dilay deyn maxkamad la soo saaray ma ahayn oo marxaati lagu oogo ما ينفتنا يبلاي لك أبو ربا سبحان الله ولذلك وحين كبرنا فتن كصحابة دحدي ذا مري علمي أقوم بين نجينات حتى على كلام كدل كدعو كي واحد لين يدي هو بالقادم يسوي الله تعالى مسا سبحان الله فتنة دائما قف كي واحد لي ولا قبنا والوعد دينا يا مرخاتبة لكن يا محكمة تساع كل حكومة يسدلي دولة داي نظام كسر لغة ضمنية هذه كلوا استحياء قيلية بوق يد فيلمات إنه نقارن صومالي يا أنا ذا قبيل كي وحنا نقارن سبحان الله وحين كل تشرون بين ده حكي لنا
marka fitnada laftigeeda markaynu baranayno cilmi iyo aqoon baynu ka baranin hatta asxaabta akhdaad iyo gafafka ay sameeyeen cilmi iyo aqoon bay naga noot way 70 nin baa la dilay ali bay markaa gaadhay ali xaguu ku socday isagii ciidankiisu shaam bay ku sii socdeen muawiya islahayn la dagaalama nimankaas diiday taacadiini markuu maqlay halkan ay ka bilaabantayba ciidankii uu soo kala leexiyo basra ayuu ku soo noqday xagan basru ku soo laabtay waayahay marka waxa dhacday wuxuu soo diray ali ibn abi talib saxaabiga la dhigay al-qa'qa' ibn amru at-tamimi qa'qa' baa u yimi marka ciidankii Aisha hogaaminaysay radiyallahu anha wuxuu ku yiri maxaa idin soo saaray maxaa rabtaan kaasay waxay dhaheen qatalata Uthman ragii dilay Usmaanina aanu ka argoosano tagimeena anagu deetana waxa bilaabantay dhexdhexaadin iyo sulx labadii ciidan marka way soo dhawaadeen sulx iyo heshiis ayaa marka soo dhawaaday muslimiintu inay heshiiyaan qa'qa' ibn amru ayaa ahaa ninka marba labada ciidan u kala gudbaya ee heshiiska wada ali marka wuxuu cadeeyay wuxuu yiri anagu ma naan dilin Uthman ragii dilay Uthmanna inaanu qisaaso raaliban ka laakiin waqtiga ku munaasabka weeytii waan dilaya laakiin waqtiga ku munaasabka dawladda looga dambeynaya de waqtigii ay go'aaminayso marka maxay saxaabadu isku hayaan waxay isku hayaan tawqiit qatl qatalata Uthman waqtigiiba la dilaya oo la qisaasaya dadkii ka dambeeyay dilkii Uthman waqtigaas qolada Aisha iyo Muawiya iyo Zubayr iyo Talha iyo saxaabadaas waxay leeyihiin الان imik dil alina wuxuu leeyahay idinku iyo hogaansama markaas ay dilay doona waxa dhacday hadaba ciidankan Ali ibn Abi Talib waxa ku jira rag kamida ragii dilay Uthman ila Madiinu ka yimid ragii baa soo raacay ragii dilay Uthman bin Affan qaar kamida baa ciidanka Ali ku bixi jiray habeenka markaa uu dhacay heshiiskaas oo ahayd qisaas la qisaaso ragga la qisaaso shayaadiintii baa markaa fakirtay oo ugu horeeyo Abdullah ibn Saba al-Yahudi Abdullah ibn Saba aan ka soo warabnay fitankii balaayada uu bilaabay raggii baa shiray si hoose u shireen u fiirsada shayaadiintaas u shirayaan waxay dhaheen warin wiligiinba waxaanu haysanay inuu caliina difaacaye soo kan maanta cadeeyay inuu dilayaba labada ciidanba waxaan ay ku heshiiyeen waa inaga dilkeena war maxaynu sameeynaa marka mid baa hadlo wuxuu war waxaanu sameynaynaa aynu cararno firdad araafka lagu goo hadaad cararti soodiga ragii ka dhex baxay adigu qabtuun bal dhaw kuwa nimankii subhanallah waxba kuma talinin buu mid kala hadlo war maxaynu sameeynaa aynu Ali laftigiisa dilno subhanallah Ali laftigiisa soo mu oran waan dilay ragii ka dambeeyay dilka Uthman isagana aynu ku xujino kaase waxay dhaheen wariyaa hadad Uthman raacisid Ali iska daa inaga isirkeena damban la garanay meel aadeen taana uu fakara Abdullah ibn Saba al-Yahudi wuxuu war dhageyst inaga qalalaansaana dantu inoogu jira laba qaylo dhexdood baa quudkaygu ku jira المشكلة markay joogto ay inagu dhex noolaan karna labadan madaxa isla galaan markaas ay inagu noolaanayna eego fitanka mar walba asxaabul fitan waa baxay qofka fitnada wada wuxuu ku dhex noolaadaa fitnada dhexdiisa ayuu ku dhexnaa nin baa maalin sheekeynay wuxuu leeyahay laba qabiilo Soomaaliya islaayay nin baa qabiil buu ka tirsanaa ninku maadhar buu ahay waxa afar nin buu dilay waa maadhar wuu quustay أهل النار جهنم وقوستي إنه جهنم قليو ما أنتي دمبه أيات دجال داعي نكاس سألوها وصعنا يدد كدلي أيات دجال بالله خيرات بكره داعي كيبا مركز دجال كي قلي تدبو سولي جيس بو يسوب بدلية هليي مركزات طور تلوج ساقال لبا حيجي هليي نكيا فرت الدليل ما در كام حي يسوب بدلية مرقوة هليي يجيس سبحان الله إك فتنة وحى وذا والنوع تدكاسك ده فايدة سنة مركز فتن سبحان الله نمكي واحد ده واحد وصمين إنه عاو مركز ساو سحدان مسلمين تاس اللي نقل إنه هالشيء
aynu iyagoo la hurdo qayb ka dilno qoladanna qayb ka dilno kadibna aynu qaylinno aan idhaahno waana soo weeraray safety iyo waranka lagu boodo dagaal ha dhaco markuu dagaalkaasi intuu jiro waa noolaan karnaa shaydaankii baa ugu fikray baloo fiirsada subhanallah habeenkii baa la seexday sheekadii baa u hirgashay qoladana dad bay ka dileen qoladana dad bay ka dileen dabadeedna way qayliyeen waana la soo weeraray oo dagaalku dad baa dhintay nin walba isagoo indhaha saa isugu hayo waranka saa yidhuun way bilaabantay marka dagaalka معركة الجمل دقال كلنا جمل كا أوركي عائشة ودتبا لوجو مقعدري معركة الجمل هلا سوق بلا من مركب دقال كاس صحابة ووين النبي جابا كلنت وولي بعشرة المبشرين بالجنة كم ده طبعا كي صحابي الجنة اللي يقول بشاري الزبير هي طلح يويل كيسي محمد بن طلح محاكينين أصحابته ووين ندته وفتن وفتن كوي حقيقة مركا أي علماء الإسلام كويجين فتنة مركا أركان مسلمين تون إسلامس لبا صدق قلا أي الصحابة وهاين حل جاء مركا شوي قلا علي لسعوتي هي قلا عيدا كعائشة مركا لسعوتي زبير يطلحة هي قلا كفريسة قلا ذا كفريسة بنا حقي أصيبت سعد بن أبي وقاص عبد الله بن عمر أسامة بن زيد محمد بن مسلمة رجع كفريست ومسلم إسلامية سعد بن أبي وقاص واتي الله شجع يقولي علي باويري يا أصحابتي كلا سعد وحواها سبحان الله كيف الدم إنسان كعدة وراعوا يقول ليس وإن من كان تلع عثمان بن عفان حتى هو بارك سعد وإني هروق صور رمني إنه ها مستجاب الدعوة سوما دعاء ولا قبل يشري محوكوها بارك ما تقانا مركو آخرية آيات هذه قول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي وحوري إله يوم رجل كوا وخذهم إله قبو وهبار إلا الله waxa ay ku dhaarteen asxaabtii iyo dadkii xilligaas soo gaadhay ahad kamida ma jiro dilkii Uthman ku ka dambeeyay isna waa la dilay habaarkii Sa'd bin Abi Waqqas baa ku dhacay subhanallah marka Sa'd wuxuu oran jiray ii keena seef hadaan qofka ku dhufto oo qofkaas ii garanaysan inuu qofkaasi gaal yahay kaasina muslim yahay سيفتي سلوح بكرجي هذا واسبرتي لوح بكرجت كمو قريب قريب منو دوانين مسلم إسلامية عبد الله بن عمر ساس سوكله محمد بن مسلمة ساس سوكله أسامة بن زيد وحي كسوم روا قرن إنسان أسامة بن زيد نبي قول نول عليه الصلاة والسلام أيو أسامة نقال أو قال هذا المركز الله تقال ما هي أو تضبط الله أيو أسامة سيف ساو وقبت markaasuu ninkii ashaatay ashhadu an laa ilaaha illa allah ayuu deetana madaxuu ka gooyay markaasaa nabiga loo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah war ma waxaad dishay markuu yidhi laa ilaaha illa allah kadib markaasuu dhahay nebi allahu wuxuu saa u lahaa seeftun buu ka baqanayo markii hore oo dhawna leynayay markan seefta saa u dul saaray hayuu isiri talo maxaa seefta kaga badbaadaa war ma laabtiisa jeexday saad ku garatay ma qalbigiisa adigu jeexday suu ku gartay ilaa Usaama uu oran jiray waxaan jeclaystay maalinta in marka aan dib u soo islaamo oo Ilaahay dambiyadeedii oo dhan u dhaafo ila qofku markuu soo islaamo gaalka uu yahay Ilaahay dunuubtiisa oo dhan buu dhaafaa Sooma nik barka xadiiskaas oo xasuusnaa Usaama bin Zayd muslim baa islaanay oo carray mujur وهكذا سبحان الله ولذلك فتن كوحيالها إنه كفايد إنه وحى كمذا مركا فتن كمسلمين تدحمري إن ميل مسلم يسكول يوم هذا دركته أفكار كقبس كعنت هذا كقبس مال كقبس دجاها كفريس إله ما مقال ما دجيسن وما تشهدوا والله مركا سبت بدبادي هذه كلا وضح فريسان ده دقيقة أصلا بدأ فريسان مسلم إسلامي محل فايدة مسلم إسلامي بل هبل بهبل دلي كاسات دلي بقول بقى ما أنت اللي دلي لا بقول بقى دلي يلا قد دلي مسلم بقى قد دلي أظن بقى بيسنة سبحان الله بل الصومالي ده داو فرس يا قبائل ده نبي كإسلامي وفان إن هبل اللي تحسن وكده اللي ما أنت ورا ده بيسنة يسكت حشود سبحان الله
مسلم با مسلم كلا دلي إن اسكو حشونا بها سبحان الله إلهي ذنبنا الله داف ذنبك والدكنا الله داف إلهي ذنبنا ذنبك والدكنا الله داف إلهي سبحانه وتعالى ذنبنا كوالدكنا الله داف إلهي ودنكنا إلهي نبضي برواقية أمني الله قادسي مدحنا الله ينوها قادشيو مسلم كمل وشوقنا إلهي توفيق الله وافجيو من نمضي وذا شركة إلهي هينو إلهيو إلهي رحمات كيسي رحمة ديسي مدر خير قبل إلهي سمد الله هينو كانوا من نبض ونكسن صو صار إلهي هينو كانوا ما يتاد كيني دينتين إلهي أو نحرست إننا الله هينو قد بنا حريستو إلهي قداشودنا إلى ما فتنايو أنت مسلم بمركع حنوسان سنة إلهي شافيو واحد شراء نيكي وضيقها محمد أيام مانتي نيكي دلبني يدعو ويل كيسي حنوسانية سجن إلهي شافيو إنك هاو حنوسانية الله هو شافيو عافمات هما الله هو سيو مدو سودك دقاء الله هو سيو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد